Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan bilaabi doonaa barashada Adobe Illustrator 2023. Barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad markaasi loogu isticmaalo design-ka iyo waxyaabaha la naqshadeynayo, kuwaasoo markaasi lagu soo post gareeyo ama lagu soo daro social mediaha ama la daabaco. Adobe Illustrator markii aad soo dejisato oo kusoo keenaa wajahadan hore ayuu ku keeni doonaa. Wajahadan hore waxaa la yiraahdaa welcome screen ama waa shaashada marka horeysa oo kugu soo dhaweynaa waaye Adobe Illustrator-ka. Adobe Illustrator marka warqadan waxaa la yiraahdaa, shaashadan weyn waxaa la yiraahdaa welcome screen. Qaybtan oo ujeedaa wuxuu kugu diyaariyey cabiro markaasi oo aad ku bilaabi kartid. cabiro aad ku bilaabi kartid waa kan waraaqadaha oo kale, postcards oo kale, waxyaabaha la farshaxanka oo kale, iyo common waxyaabaha website-yada waxaas la xiriira, waxyaabaha taleefanada la xiriira, noocyada taleefanada ayuu meeshan inoogu diyaariyey. sidoo kale waxyaabahan muuqaalada lagu sameeyo iyo wixii la bidaa haddii intaan aad soo gadatay intaan wixii ka badan waad ka iibsan kartaa. qaybtan recent la yiraahdaa. Recent waxaa la yiraahdaa waxyaabihii hore aad adiga kusoo qabatay barnaamijkan Adobe Illustrator. Okay, markaan ka socono inta waxaa ku qoran waxaa ku qoran icon. Iconka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa new file. Adobe Illustrator oo 2021 oo kale ama 22 oo kale wuxuu leeyahay create new ama file cusub abuur. Hadda laakiin meeshan waxaa ku qoran new file. marka sidaa darteeda marka mid walbo mid ka dambeeya wuu kasii duwanaan doonaa saan filayo. marka meeshan si fiican isaga fiiri haddii uu ku yahay new create, anigana hadda wuxuu yahay new file, isku mid waaye labadooda wax ay ku kala duwan malaha. saddex qaabood marka gudaha aan ku tagi karnaa Adobe Illustrator gudihiisa meesha shaqada laga qabanayo. saddex qaab aan ku tagi karnaa. qaybka ugu horeeya oo ah in iconkan aan ku dhufto gudaha si toos aan u galo, ama intaynaan file cusub aan abuuro aan gudaha galo anigoo faylka abuuray, ama documenti hore oo ii diyaarsanaa open inaan ku galo, documenti hore inaan ku galo, documentigaas oo gudaha geeyo isagan. waxaan saddexda waa isla fiirin doonaa cashirkan ku baran doonaa insha Allah. marka ugu horeyso iconka ku dhufanaa si toos gudaha ayuu u geyn doonaa. markaan ku dhufto waa kaasa, laakiin iima abuurna wax la yiraahdo file iima abuurna, laakiin gudihii oo hawsh meesha lagu qaban lahaa waan taaganahay, laakiin hawsha ma qaban kari sababtoo ah inaad documenti samaysto. documentigaas oo aan magac iyo waxyaabo iyo cabir inaan soo hagaajisto kadib la isiiyo meesha aan ku diyaarin lahaa documentiga. qaybta koowaad saas ku soo gali kartaa. qaybta labaad waxaa samayn kartaa inaad dhahdid new file. new file markaad dhahdid oo kale waan ku dhufanaa new file. markaad dhahdid warqadan oo kusoo boodaysa isla markiiba warqadan oo kugu diyaarsanaa ama cabiro hore kugu diyaarsanaa ama cabir adiga aad gashanayso oo kale. tusaale magaca inta lagu qoraa warqada, faylka oo kale magaca inta lagu qoraa waxaa leedahay poster oo kale. okay, poster markaad dhahdid oo kale intaadan aadan gelinin cabirka waa inaad marka hore inta jeeg aad ka soo saartaa. haddii aad rabtid inaad samaysatid oo kale centimeter, millimeter, meter ma dhowr lagu soo daray, ugu qaar ma lahan, yardi, feet iyo inchi, feet oo keligiis, inchi oo keligiisa, iyo kaas points iyo pixel. waxyaabaha adiga aad daabacaada aad gelin doontid oo aad daabici doontid boorarka iyo waxaas oo wixii lamid ah waxaa waaye meter iyo centimeter aad isticmaalaa inta badan. nin walba cabirku yaqaan uu isticmaali karaa. markii social media wax lagu soo post gareynaa waxaa la isticmaalaa pixels la isticmaalaa. pixels markaa isticmaashid oo kale meeshan wax lambarka rabtaa gashan kartaa. tusaale oo kale 10 by 80, haddana waxaa leedahay 10 by 80. cabirkaa gashtay waa ujeediin waxa waaye waa 1080 oo pixel ah. haddii aan rabo artboard-yada aan ku shaqeynaa, artboard waxaa la yiraahdaa waraaqadaha. inta warqad aan rabo inaan design aan ku diyaariyo ama design aan ku hagaajiyo, waraaqadaas oo kale waxaa la yiraahdaa artboard la yiraahdaa. inta artboard aad diyaarsanaay labadan xaba ujeedaan waxaa la yiraahdaa midkan waxaa la yiraahdaa waa landscape, kana waa portrait. landscape markuu yahay waa joog markuu yahay, portraitna markuu yahay. landscape markuu yahay waa marka uu jiifka uu yahay, portraitna waa midkan
markuu yahay istaag oo kale markuu yahay. Qaybahan oo kale wax lagama bedelayo. Qaybta ugu muhiimsan waa intan. Intan waxaa la yiraahdaa laba kalar ku jirto, waa RGB iyo sidoo kale CMYK. RGB wuxuu u taagan yahay waa kalarada markaasi lagu daawaco website-yada. Waa kalarada markaasi loo isticmaalo website-yada iyo social media waxyaabaha la gelinayo. Waxyaabihii daabacaad ku saabsanna waxaa loo isticmaalaa CMYK loo isticmaalaa. Haddii aan mid walba aan wax ka sheego ama mid walba aan ka taabto, RGB waxaa laga soo gaabiyey waa red, green iyo blue color. waxaa leenahay art waxaa laga soo gaabiyey red laga soo gaabiyey, G waxaa laga soo gaabiyey green laga soo gaabiyey, B waxaa laga soo gaabiyey blue laga soo gaabiyey. waa nidaam markaas midabeed oo loo isticmaalo shaashadaha sida taleefanada, kombiyuutarada, mobilada, kaamirooyinka digitalka oo kale loo isticmaalo. CMYK marka iyadana maxaa loo isticmaalaa? CMYK waxaa laga soo gaabiyey cyan oo buluug oo nadiif ah iyo magenta oo casaan ah, yellow iyo waxaa laga soo gaabiyey EK oo black ah. yellow waa jaale, macnaha C waxaa laga soo gaabiyey cyan laga soo gaabiyey oo buluug ah nadiif ah oo waxba lagu darin. M waxaa laga soo gaabiyey magenta ayaa laga soo gaabiyey oo ah casaan. Y waxaa laga soo gaabiyey yellow laga soo gaabiyey oo jaale ama huruud. K waxaa laga soo gaabiyey black ayaa laga soo gaabiyey oo madow ah. sidaa darteeda kalaradan iyadana waxaa loo isticmaalaa in markaasi lagu naqshadeeyo. waa nidaam naqshadeed ama nidaam midabeed loo adeegsado daabacaadda sida printerada, buugaagta, boorarka, waxyaabaha la xayeysiiyo. intaa in la fahmaa rajayn doonaa. kadib waxaa leedahay haddii boor uu yahay ama oo kii uu yahay waxaa daawanaysaa CMYK ayaa dooranaysaa. haddii uu caadi wax social media ku daawacaysan yahay RGB yaa la doortaa. kadibna waxaa lahaa create aad leedahay. create markaa dhaadid fail ku abuurmi doono. failkaasoo markaasi maxaa adiga uu ku abuurmay oo hadda inaad design gareysid oo kale. artboard-yada aan sheegayna waa kuwana. kan waa artboard 1, artboard 2, artboard 3, artboard 4. afar artboard ay samaysan. afartooda midkaa rabo design-ka waa saaran karaa. haddii kan design aan saaro kan design la-aan u noqon karaa. mid walbana waxaa aniga ugu talagalay ayaan ku design gareyn karaa. marka qaybta labaad waa new file. haddii aan banaanka u baxno qaybta saddexaad aan kusoo geli karno waxaa la yiraahdaa open. waxaa muhiim ah ama waajib ah in open aad kusoo diyaarsatid ama fail aad soo diyaarsatay hore oo illustrate ah oo ku save gareysnaa asoo markaas oo illustrate ah ayaad kusoo gelin kartaa. haddii aan ku dhufto click aan siino openta, failka oo kale hadda kan oo kale ma ku dhufan kari. waa kan hadda ku dhufto warqad caadi oo wax kama bedeli kari. laakiin kan hadda ku dhufto waa fail oo documenti ah, documentigaas oo illustrate ah. haddii aan ku dhufto oo kale failkan oo aan wax inaan ka bedelo oo kale aan rabo, waa kaasa fail hore igu diyaarsanaa. failkaasaana hore igu diyaarsanaa. waa ujeedaa new tab kale oo ii furay. tabka hore aan isticmaalay waa kana, tab kale oo hadda ii furayna waa kana. sidaa darteeda saddexdaas qayb ayaa lagu soo geli karaa. mar kale haddii aan ku celiyo aan soo khulaaseeyo, saddex qaab baa lagu geli karaa dhahnay. kow marka ugu horeysa iconka inaad ku dhufatid gudaha aad tagtid. haddii aad markaasi gudaha aad tagtid fail aad soo dooratid, failna aad adiga meesha ku hagaajisatid. labo waxaan dhahnay new file inaad fail cusub abuuratid. saddex waxaan dhahnay open ayaa wax lagu soo geliyaa. shaashadan horena waxaa la yiraahdaa marka welcome screen la yiraahdaa. recent waxaa la yiraahdaa waxyaabo hore aad adigu u samaysay si uu ku soo xasuusiyo qaybta hore uu ku soo galay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaystaan cashirkan iyo cashirka xiga insha Allah.